وهجاك ما دام أنو كهذلني درها سان شيء هرجيسي سمويلس مانتا سان شيء وحا طبعا دعي حالي دودا أدو وين أو كسلسن مالجشي عالمي أو الربو إن دولة داسية كفريسو وده الصومالي أرنتاني halkii ay ahayd protocol ahaan wasiirka arrimaha dibadda wasiirka macdanta oo runtii meesha ugu badan ee macdanta la doonayay in laga soo saaro awdal tahay waxay ahayd inay goobjoog ka ahaadaan wasiirka biyaha sidoo kale oo reer waqooyi bari ah intaba dibadda la dhigay meesha marka waxaa ku kaliyeystay hal reer oo tan iyo ilaa iyo in cigaal Allah naxariistay delegationada ama wafuudaha baxa reer awdal mar walba hoteelada ama dibadda looga tagi jiray tan marka waxay keentay in maanta qoraaladan hadda aan warbaahinta caalamiga aan ku soo xiganayno ayaa rabaa inaan dul istaago qoraalka oo Ingiriis ku qoran af Soomaali ahaan waxa uu dhigan yahay sida tan waxa marka aad loo hadlayaa wariyay hore ee Raaga Omar halka uu ka soo galay protocolka waftiga iyo magaca uu xambaarsan yahay wasiirna maaha lama sheegin markii uu raacay meesha uu ku qoran yahay laakiin wuxuu dhex fadhiyaa halka lagu kala goosanayo يعني مشاريع واوين iyo maalgashiga caalamiga ah ee lagu sameeyo Soomaaliland waxa la leeyahay Mr. Omar waxa uu qayb ka ahaa wafuud caalami oo heer sare ah oo ka socda qaybta ganacsiga iyo maalgashiga halkaas oo uu ka dhacay shirkaasi meesha loo yaqaan Jerusalem waxaana dhinac fadhiyo ayaa la leeyahay xubno sarsare oo ka socda Soomaaliland oo uu hormuud ka yahay ama hogaaminayo madaxweyne Ciro xubnahaasi ay saraakiishaasi dhinaca kale iyaguna waxa qayb ka ah kuwa maalgashadayaal caalami ah oo raba in looga faa'iideeyo fursadaha ay dawladda hayso oo ay doonayso inay ku maalgeliso Soomaaliland ganacsatada caalamiga ah iyo maalgashadayaashan caalamiga ah ee halka fadhiya mid waliba waxa la cadeeyay magaca iyo martabada iyo maqaamka oo halka ku fadhiyo laakiin waxa halka jooga wariyahaasi la yiraahdo Raaga Omar oo isagu dhinac fadhiya isagoo la xusin qaybta ama kulanka ama wada fadhiga waxa uu ka yahay arintaasi marka waa arin aad dood badan hadda meel walba runtii laga wada hayo waxa kale oo inta la sii raaciyay oo haddana mar kale la soo qaatay ragga halka fadhiya ee isugu jira madaxda Soomaaliland ka socota iyo kuwa Soomaaliland ka socda iyo kuwa martida loo yahayba dad dhig ah oo inta badan isku jaan go'an ma aha laakiin wasiirka maaliyadda oo hogaaminaya dawladda Israa'iil iyo dadka shirkadaha wax maalgashada iyo dadka dhaqaalaha bixiya ayaa meesha wada fadhiya waxaana loo danaynayaa oo madaxweyne Ciro oo meesha fadhiyo ku ganacsan yahay in dadkiisa iyo Soomaaliland loo danayo wala sii waday waxa la yiri Soomaaliland Israa'iil waxay timid 2000 December 2025 ayay yimaadeen halka waxa joogay oo dooda ka furay yaa hadana markii la soo geliyay Mr. Raaga Omar oo la socdaan laba nin oo cadaan ah waa tan daawanay meel saba ah ama panel ah iyagoo wada fadhiya oo ka hadlaya ahmiyadda Soomaaliland ee u leedahay mandaqada iyo baarta iyo geeska doodii way sii socotaa doodaasi waxa la leeyahay Raaga wuxuu soo bandhigay Israa'iil iyo Soomaaliland wada jirkooda ahmiyadda uu u leeyahay in ay isku soo dhawaadaan oo ay wax wada qabsadaan haddii arintaasi ay suurto gasho waxa imanayo siyaasad iyo aragti fog oo istiraatiijiye oo ku qotonta awoodda cidda gacanta ku haynaysa marinka ama furaha marinka meesha loo yaqaan baabul mandabka oo inta badan si caalami ah ay u maraan maraakiibta dunida u kala goosha kuwaasoo muhiimna u ah geeska Afrika marka dooda markii halka marayso Mr. Bakal iyo wasiirkii macdanta iyo wasiirkii biyaha waxa looga soo tagay hoteeladoodii maalgashigan iyo dhaqaalahan malaayiinta ah waa laga qarsanaya haddii hadhow Soomaaliland wax loo qabanayana waxa hore loo sii sheegay meesha ay tahniyada iyo bogaadinta iyo jacaylka ay ka soo burqatay ama laga soo tabiyay inay Hargeysa halka marka waa qodob aad iyo aad muhiim u ah dadka la dhacsan safarkan
inay ogaadaan arrintan inay budo gaar u tuman tahay arrintani laga mudnaan siiyey wasiiradii goboladaas dhan iyo malaayiin dadka matalayay wariye Omar inuu halkaa joogo oo uu sirti iyo wixii laga wada hadlayay dhaqaalihii uu wax ka ogaado halka laga qarsanayo kuwii la lahaa maamulka Soomaaliland bay ka tirsan oo wasiiro qadar baa fadhiya gaamuush baa fadhiya maxaa u diiday ragga Gadabursi iyo ninka dhulbaante inay wax ka ogaadaan sirta iyo maalka iyo dhaqaalaha iyo halka wax loo wado taasi waxay su'aasha u taala dadka aaminsan in Soomaaliland la wada leeyahay ama dadka aaminsan in loo maqan yahay oo ay raggaasi ay u maqan yihiin qodobka xiga waxaan rabaa inaan kaga hadlo hadalkii xalay ama shalay mudane Xasan Khaliif xisaabiyaha guud ee qaranka Soomaaliland uu sheegay wafdi uu hogaaminayo 80 qof ah in magaalada Boorama uu uga waayay hoy ama meel ay ku hoydaan oo wuxuu yiri xalay dhan magaalada saa u dhex wareegayna dood badan bay arrintaani dhalisay waxaa la isweydiinayaa Boorama waxaa ku yaala in ka badan 50 hotel oo 20 iyo hoteelo waaweyn hoteeladaasi ma waxaa laga waayay 80 qof meel martigelisa waa su'aal la isweydiinayo labo su'aasha kale aadka dood u taaganta waxa weeye wasiirku maadaama Hargeysa ka soo socday wafdi inta leegno waday maxaa diiday inuu la soo hadlo hoteelada oo uu si booking kareysto ilaa adduunyadu meel walba waxa ka jira wax la yiraahdo inaad markaa meel tagayso mas'uuliyadda dadka meesha aad dejinayso waxa ka horeysa inaad meel u hesho waayo meeshan seminar baa jira ama training jira waxay doonaan ma noqdaan maxaa diiday baa leeyahay mudane Xasan Khaliif inuu la soo hadlo hoteelada oo yiraahdo 80 qof baan u baahanahay in la booking gareeyo maxaa taa diiday maadaama nin ilbax oo UK ku noolaan jiray waxa kale oo isweydiinaya Xasan Khaliif ma wuxuu raadinayay hoteelo yar oo iska deg ah oo lacag yar lagu kireysto maadaama uu mar dhaarasa oo magaalada Boorama khudbad ka jeediyay uu ka hadlayay in dadka Somaliland-ka ah laga daba tagi doono in dadka dawladda ka soo horjeeday lacagaha dawladda qaata la xirxiri doono arrimo noocaas marka waxa la leeyahay odaga Somaliland buu lacagta u yaryaranayay meel yar oo iska deg oo albaabadooda ay mara tahay mara yar oo sida la isaga faydo miyuu raadinayay oo kuwii miyuu waayay waxa kale oo la leeyahay 80 qof marka laga hadlayo oo mid walba uu doonayo hal qol way adag tahay 80 qol oo aan la sii diyaarsan Nairobi baa laga heli karin Muqdisho iyo Hargeysa ma laga heli karin sababtoo ah 80 qof oo mid walba qol uu doonayo oo ay isla markaa un haddaba hal la keenaa de wax suurtagal ah ma dad kale waxay leedahay Xasan wuxuu ugu talagalay inuu magaalada ceebayo magaalada saa kuma ceeboobayso oo waa magaalo inta ka weyn oo qof hadalkii aysan waxba u dhimi karin laakiin waxa inoo muuqata inuusan xiriir jirin aqoon u dhaxayso mudane Xasan iyo dadka deegaanka inay meesha aysan jirin dadka mulkiilayaasha hoteelada waaweyn leh inaysan yani iyo dadkan maamulka Soomaaliland ka socda inaysan jirin wax dhaxmari kara ama wada hadal ama ogaansha inaysan jirin ba meesha ka cad ugu dambeyn waxaan rabaa qodobka inaan ku soo koobo magaalada Boorama runtii waa magaalo imika yani guud ahaan gobolka Awdal degmada Gabiley soo jiidatay oo maanta magaalo ahaan dhisan oo wax walba laga helay noqotay hadii marka magaalada ay sidaan ku sii socoto oo dadkii madaxda oo ahaa sheeganay waliba madaxda oo ahaa ay dadka ku leeyeen magaalada Boorama ma martigelin 80 qof waxa fiican hadalkaasi in dhinaca wanaagsan laga eego oo la soo bandhigo sida ay fadaaxadan ama ceebtan ku dhacday la soo bandhigo mulkiilayaasha loo tagay ee u waayay martigelinta 80 qof waa inay hadlaan Xasan Khaliif laftiisa waa inuu si sax u sheego oo qaabka wax u raadinaya ma 80 qof oo hal meel uu rig ku siiyo doonayay ma lacag yar oo jaban oo 80 kaasi times inta ugu dhuftay uu raadinayay waa in la sheego waayo meeshan waa isla xisaabtamaya la saga maharayo waayo wax walba saxaafadu waa inay ka daba tagto waa inay la hufo waa in wixii la cadeeyo waxay yihiin waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado saddexdeeda qodob casuumadaha isugu soo biyo shubtay dabaashaadka iyo farxadda ee salaadiinta hormuud ka yihiin in loo bedelo goboladan iyo dadkan waxa dhibaatada ku soo socdo sidii looga hortagi lahaa wasiirada reer Awdal ee cambaaranta iyo cibaarada ay dul hoganayso ee marka manfaca iyo mansabka iyo maalgelinta laga wada hadlayo iyo dhaqaalaha banaanka looga soo tagayo war dad baad matashaan war sharaftiina ilaaliya sharafta dadkiina ilaaliya Xasan Khaliifna markale waxaan leeyahay adeerow nin ilbaxa tahay
qaabka aad wax u dhigaysid ka fakar oo markaad hadlayso hadalkaaga cadifadana ka saar gulwadayntana ka saar labadaas weeye waxa hadda hadalkaaga inta badan ka muuqato waa cadifad iyo gulwadayn qofka reer awdal waxa loo baahan yahay inuu ka koro inuu dadka la ismaqashiyo waa inuu ku faano dhulkiisa iyo dadkiisa waa inuu ceebaha dadkiisu leeyihiin uu qariyo waa inuu maaragtay waxa uu soo bandhigayo oo reference ama wax cadeyn oo hayo waa inuu maaragtay yahay qof u toreeyo dadkiisa iyo deegaankiisa inta aad xilka Somaliland ka hayso haddaad tahay qof muuqda oo hadla oo wax dhaliila markaad xilka ka tagtana aad noqotid maaragtay qof loo mooyaan ama gidaarada isaga noqdo waxay saameyn ku yeelan doontaa mustaqbalka carruurtaada iyo dadkaaga inta ayaan kusoo xmeerayaa barnaamijkeena Abrona Show Aero TV aad kala socotaan wixii tala iyo tusaale amaad haysaa waxaad nagu soo hagaajin kartaan aerotv@gmail.com وأنا صحفي أبرون حق فرسمة وإنجنير مودي برنامج من ضمن تقول من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.